hadalkani ku aadan sida doorasho xalaal ah ay uga dhici karto gudaha dalka Soomaaliya ayaa xildhibaan Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan waxay ka sheegtay kulan lagu shaacinayay midowga xisbiyada garsoor BDU iyo xisbiga NDP oo ka dhacay magaalada Muqdisho. kulankani ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan, siyaasiyiin, aqoon-yahano, waxgarad, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo marti sharaf kale. intii kulanka uu socday ayaa asxaabta siyaasadeed ee midowday waxay isla gorfeeyeen arrimo la xiriira danaha dalka, qaabka dhammaan xisbiyada oo idil ay u midoobi karaan iyo sida doorasho qof iyo codkii ay uga dhici lahayd gudaha dalka Soomaaliya. gudoomiyaha midowga xisbiyada oo magac looga dhigay Hiigsi ayaa waxaa loo doortay xildhibaan Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan. ku-xigeenka gudoomiyaha waxaa loo magacaabay xildhibaan Zakariya Xaaji Cabdi. afayeenkana waxaa noqday Cabdilaahi Sheekh Xasan, kuwa oo ka kala socday asxaabtii midowday. afayeenka xisbiga ayaa ugu horeyn akhriyay war qoraal ah oo ay soo saareen midowga xisbiyada Hiigsi. saddexda xisbi oo kala ah garsoor, NDP iyo BDU kadib markay arkeen xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed ku sugan yihiin, ogaadeenna tirada xisbiyada dalka oo tiro batay, hubsadeenna rabitaanka shacabka Soomaaliyeed oo ah dawlad doorasho ku timaad, ku qanceenna dariiqa kaliya ee dawlad wanaagga lagu gaari karaa inuu yahay doorasho xor ah, qof iyo codkiisa ah. madasha ay ku midoobeen xisbiyada kala gedisan ayaa waxa gunaanadkii kulanka ka hadashay gudoomiyaha midowga xisbiyada ee Hiigsi Marwa Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan, waxaana ay shaacisay in doorashada la filayo in ay ka dhacdo dalka aysan ka soo fulayn qabashadeeda filla Soomaaliya ee u diyaargarowgeeda looga baahan yahay xisbiyada ka dhisan Soomaaliya. xildhibaanad Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan ayaa carabka ku dhufatay in asxaabta kale iyaguna ay ku soo biiraan xisbigan Hiigsi, iyadoo ugu dambeyn ka hadashay qaabka ay doorasho xalaal oo qof iyo codkii ah ay uga dhici lahayd gudaha dalka Soomaaliya. hadalka waa la soo dhameeyay oo waa laga hadlay baahida loo qabo isbahaysi iyo Hiigsi iyo ujeedooyinka Hiigsi intaba waxa ka soo hadlay madaxda. waxaan aniga rabaa kaliya inaan ku daro baahida loo qabo doorasho dhacda. doorasho in loo baahan yahay dadku su'aal baa laga yaabaa intiina fadhida xitaa inaa su'aal iswada weydiinaysan doorasho ma dhici doontaa talo ma dhici doontaa qof walba is weydiiyaa. aniga si ay la tahay ama dad badan oo kalena ay la tahay doorasho way dhici kartaa, waanay dhici doontaa insha Allah, waanay sahlan tahay haddaynaan doorasho u dhaqaaqina halkaa aynu joogno iyo ka daran baynu maxay haytay noqonaynaa. Soomaaliya waxay noqotay neef qalan oo lagu soo qamaamay oo cid waliba ay qurub ka rabto oo cadaan iyo madow iyo carab cid waliba ay ku dagaalamayso inay ka hesho waxaynu u baahannahay in aynu kulligeenu dagaal gallo inay xisbiyadu shaqeeyaan. haddaynan taa oo la dheereeyo oo la yidhaa waqti baa kolba la dheeraynaya, dhibaatada aynu ku jirro iyo ka daran baa lagu jiraya. gumaysi iyo baryo iyo gacan aynu horsan waxa la qaatay inagoo 5% hela oo shanteenaas nagu filan kulligeenba 10 milyan baynu nahay oo haaf maqan yahay. haddaynan taa helin xorriyadna ma helayno. xalana waa arkaysaan, xamar inta kala qaybsantaa arkaysaan, Soomaali meel inta maqanina ma imanayso, inta hadda si kala tagtagaysa. hal is register gareeyo xisbiyada, hal la galo, hal is register gareeyo. xisbiyadani kala duwan ee ka dhisan gudaha dalka ayaa waxa aan la ogeyn waxay ku soo kordhin doonaan siyaasadda guud ee dalka. Ibraahim Sheekh Xuseen Sheekaye, Bulsho TV.